السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان umada Soomaaliyeed walaashin aamin laki official salaan kadib walaalayaal umada Soomaaliyeed dhamaan tacsiban u soo diray waxaan leeyahay ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi qoyskii dhibaatadan gaartay samri iimaan ha siiyo ilaahi subxaanahu wa ta'aala qalbiyadooda ha u qaboojiyo qisadan hadii ay tahay qisadii aan hore u ogaa maadaama miidiyaha wax laga sheegayo ee waxaan aanu hore u maqlay ay iskeenayaan wiilashan hooyadooda ka horeysay oo dhimatay Allah u naxariistee waxa qisada iga sheekeeyay qof familka aad ugu dhow oo waliba hooyadu ay la soo kortay baa iga sheekeeyay 2016 iyo 2017 bida ahayd ma xasuustay mid baa liiga sheekeeyay wiilasha maanta is dilay saddexda wiil ee labana walaalkood dilay midkii wax dilayna booliisku isugu sii dilay saddexdoodiiba maanta meesha ay ku dhinteen iyo sababta keentay qisadan waxa ka horeysay hooyadood caruurtan hooyadood oo markii horeba si xaq daraa loo dilay waxaana la iga sheekeeyay oo ay ahayd family aan aad iyo aad maaragtay sunna qaanibay gabadhaasi ka mid ahayd inkastoo iyada aan aqoon u lahayn Allah u naxariista marxumadda 90kii markay ahayd sanadkii muxuu ahaa 1990kii baan anigu xamar ka soo dhoofay anoo aamina lakiya markaan ka soo dhoofay 5 bilood ka bacdi baa qaxii dhacay haddii ay qisada saan u malaynayo oo sida miidiyaha lagu soo galiyay sida aan hayay ay isku mid tahay qoyskan qoys aan daris Madiina ku ahayn bay ahayd xaafadda Madiina waxaan dhigan jiray markii hore iskool yiraahdo iskool Djibouti ka bacdina waxaan dhigtay oo u wareegay iskool dhamaya si cartan waxaan isla dhiganay gabadha walaasheed iyo naadirteed mid ay ma aqaanay gabar yar oo la dhaho Leylo oo markaas ku lood ahayn gabadha markaa dadkii ardayda dugsiga sare dhameeyay oo gurigooda joogay ahayd markaa lama qabin waxaan xasuustaa qofka familka iga sheekeeyay wuxuu igu yiri ma xasuusataa markaa adiga Leylo iskuulka ka soo baxdaan dugsi hoose dhexe baan ahayn markaa iskuulka ka soo baxno wuxuu yiri guriga hortiisa ayay fadhin jirtay qof aad isaga degan oo maskiin ahaan jirta Aamina imaada xasuusan ma xasuustaan ku runtii 20 sano iyo 20 sano ka soo wareegtay ma xasuusan karo markaana dharjaalaan ahayn marka Leyla waan xasuustaa oo Leylada waxaan ku xasuustaa inaan isku lood ahayn oo iskoolkaas kala soo bixi jirnay laakiin gabadhan ma xasuusta marka wiilasha dhashay laakiin waa familkeedii waa gurigay ku soo kortay haddii qisadu ay isku mid tahay weeyaan ma rabo inaan ku degdego Allah u naxariisto hooyadaas hooyo ilma haysato Mareykan iyadoo degan oo iska single mother ah ayaa ninkan waxa loo siiyay muxuu ahaa dumaal waa ninkii walaalkiiba dumaal loo siiyay si inuu caruurtii la siro isaga ugu naxariis badan ninkii loo xigsaday ee lagu soo dhaweeyay familkiiba wuxuu ku dambeeyay inuu hooyadii dilo sababta uu ku dilana ay ahayd gabadhii yareed oo adeerka u ahaa wal billaah inuu ku soo hoos noqday asigiyo waalida caruurtii ilmihii yaraa adeerka u yahay agoona run ahaantii aad iyo aad baraga Soomaaliyeed rag oo dhamma saari kara dambiga laakiin qaarkood waa jiran yihiin ninkuna markuu jiran yahay qoys iyo waxa maba arkaba iyo naxariis iyo waalidnimo ma arko waa ilmo uu aabba u yahay waa adeer ilmo uu yahay walaalkii dhalay aabbu u yahay sama waa walaalkii ruma lagu leeyahay iyo in adeer ruma la aha ma hubo runtii laakiin walaal buu la ahaa dumalahan baa loo siiyay gabadhii yareed xitaa waxa markaa aan ogahay in laygu yiri 2 jeer ayuu ilmo ka soo riday iyadoo saqiir aan 12 kaba yarba ilmahaas yarka ah ilmo yar oo gabar yar oo farxaanada aad u naxariis badan bay ahayd buu qofka markaa ii sheegay wuxuu igu yiri waxaan dareemay buu yiri in isbedel way jiraan markii gabadha markay ciyaalka la ciyaarayso ee ciyaalka ku dhex jirto gabar faraxsan ahaan jirta markii naloo keeno ay farxadeedii isbedeshay gabadhiina maaragtay aan isbedel badan ka dareemay buu yiri markaas xoogaa shaki igu jira laakiin ma ogeyn buu yiri ilaa xadkan in gabadha loola dhaqmo oo ilmaba laga soo ridayba heerka markay hooyadii ogaatay ayay xanaaqday hooyadii waa ka tagtay gurigii markay ka tagtana ka bacdi waa taqaanaan odayadan macawista hadha dheer leh adeero wax astur gabadhii waa ku soo celiyeen gurigii heerkaasna heer wax lagu asturta maaha waxa qarsato waa ku qarsadaan ban maqli jireen gabadhii gurigii markii lagu soo celiyay oo arintii la ogaaday ninkii wuxuu soo istaagay waa badii ceebays isagaan is ceebeeyay oo dhibaato geystay wuxuu u soo dalbaday
isaga markaa ma dilin baan maqlay qof buu kusoo dalbaday hitman wax la yidhaahdo oo loogu talagalay dadka qaar inta lacag soo siiyaan yidhahdeen qofkaas soo dil gabadhii gurigeeda iska joogta oo barkin madaxa laga saaray way ku dhimatay caruurta yaryarka ah waxa ogaaday baa la yiri oday deriska ah oo Soomaaliyeed hooyo aad u fiican caruurteeda ka adag bay ahayd kuwii hore u dhashay ninkii hore u dhashay marxuumka u dhashay iyo kuwan ay u dhashayba dhowr caruur ay ahaayeen markaa ma xasuusto inta qiyaasta ay ahayd odaygaasa waxa la yiri wuxuu yiri baa la yiri muxuu ahaa warmiyadii iskuul lahayn iyo aawo hooyo iyo aabba iyo meeye iyo hooyo way hurdaa duhurkii markaa wuxuu soo noqdaa la yiri ciyaalkii wali banaanka ku ciyaaray oo aan iskuulna la geenin hooyadii muxuu ahaa daryeeli jirtayna aan meesha ka muuqanin markuu weydiiyay wax yiraahdeen baa la yiri haddana hooyo way hurdaa war hooyo ilaa intaas ma hurdi kartee waaban tago waan soo noqday wax ku dhaceen waxa la yiri kor buu tagay gurigii hooyo qolkii tusa qolkii buu tagay mise gabadhiyo meeyda loo tagay ninkiina isla markiiba diyaaraddu raaca Soomaaliya aaday inkastoo isaga xitaa igu maqaalaa inuu dhintay inuu iskii u dhintay la dilamo hubo laakiin isaga laftirkiisa dee qof dulmi galay buu ahaa meel fog ma gaarin adiga caruurtii maanta waxaan wiilkan hadda hortayda taagan ka maqlaaya in caruurta markaas la qaatay gaaladu qaadatay waayo way yaryaraayeen qaarna eedadood korisay baan maqlay oo eedadood haysay qaarna ay gaaladii qaadatay adu cala kulli xaal ciyaalkii cuqdad iyo dhibaato iyo waxay ku koraanba inkastoo diin lagu ababiyay inkastoo wadaaday yihiin inkastoo maanta iyaga masaajidka ay tujinayeen ayagoo dhowr iyo 10 jir 16 jir iyo ayuu ahaa ninkii imaamka ahaa ee sida la arkaad uga fiirsateen miiriyaha wiilka wax dilay xitaa waxa la sheegay inuu diinta iyo quraanka dhameystiray laakiin cuqdadii aabahood uu u sababay caruurtu waa isku hooyo waana kala aabo maadaama wiilkan ciil uu qabo waxaan maqli jiray rag ciil cadaab ka dooray maadaama walaashiina dhibka loo geystay hooyadiina la dilay walaaladii muu xasuusan waa kula dhasheen xitaa ismuu dhihin cadaawadii uu ninka u qaaday ayaa keentay inuu maanta awlaadii walaaladii uu dhaafiyo asagiina markaa naftiisa la dhaafiyo inay maanta saddexdoodiiba meesha ku dhintaan ciyaalkii raraa marka iskuulka muxuu ka yimaadeen meesha la yiraahdo ay ka yimaadeen masaajidka buu dilay asagiina sidaas loo dilay marka naxariis darrada ragga Soomaaliyeed ay keenaan iyo galaafantanka ay reerka ay galaaftaan rag oo dhan ma saarayo iga raali ahaada laakiin inta badan majority waad u badan tihiin ragaan iimaan lahayn ragaan ogeyn meeshay marayaan rag aan ogeyn waxay geysanayaan iyo dhibaatada ay dadka u soo ku kalifayaan bal ninnan oo naaqabo naagtiisa u joogto haddana ilmo yar raadsanayso cudur ma aha oo uu adeer u yahay oo agoona oo waalid u yahay oo guriga la joogta hunguriga u qaban karaa maxay tahay naagu waa naaga mid baab u joogto oo xalaale cudurada aad la wareegaysaan maanta waxay keentay curadyadii hooyadaasi dhashay inay halkaa ku dhintaan waa wax aad looga xumaado waa wax aad iyo aad looga murugoodo waa masiibo aad intiina badan aad arkaysaan raggu say u soo hooydeen marka gabdhaha Soomaaliyeed badanaa hooyooyinka keligooda ha ka fiirsadeen awlaadooda meesha ay marayaan iyo ninka ay soo xareynayaan guriga u keenayaan waliba iyada gabadha maskiinta waxa loo siiyay dumaal ahaan ninkii la siiyay isaga ugu dhow oo ilmahan u naxariisan kara waa ninkii la siiyay isaga waalid u ah oo xumaan uga imaan mayso waa ninkii loogu naxariis islaha ugu naxariis badnaanaya baa maanta dhibaatadan keenay asagii waa dhintay ayadii waa dilay awlaadiina waa isdileen waa reer dhan oo saas ku dhamaaday Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa waalidka iyo walaalada iyo dadka ay ka dhinteen inkastoo familkooda qaar aan aqaano ilaa hadda aan la xiriiro haddana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa inuu jannatul firdaws iyagiina geeyo ayagana qalbigooda u dhayo warbaan ka sugayaa inuu warkan sheegayo uu yahay familka aan ogahay inay yihiin fariin baan diray oo qofkii baan la xiriiray marka wali uu wax wara kama hayo waan ogaan doonaa insha Allah hadii la yiraahdo inay isku sheeka yihiin baan arkaa laakiin Allahu yaclam waxaadan ogeyn waxa ka fiican inaad tiraahdo Allahu yaclam qisadii la ii sheegay bay u dhowdahay maadaama hooyadii ay tahay hooyadii sida la igu sheekeeyay iyo warkii aan hayay ay tahay marka haddii iyagii ay yihiinna waan soo ogaan karaa haddii ilaahay soo ogaan haddii ayna ahayna kulli wadadka Soomaaliyeed waa ummadda Soomaaliyeed waa ummadda walaalaheen ah waa ummadda musiibadu ay ku dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigooda ha u nadiifiyo
ilaahay samri iimaan ha siiyo awlaadaas yararka nafsiga laga galayna rabbi subxaana wa tacaala ninkaa wuuba dhintay ilaahay cadaabtaa ku fogeeyey u ducayn mayna isaga waa ninka maanta hooyadii iyo ubadkeediiba galaaftay ilaahay kaa aakhiraha kaga aaro nin kasta oo ciladaas sameeya ama waxaa ku jirana ilaahay ha kaa qabto saqiirada aad dhibaatada u geysanaysaan damiirkaaga hadduu ku siiyo ilmo yar oo aad waalid u tahay xitaa haddaadan waalid u ahayn ninka ilmo yar ku saqajaamaya ee maskaxdiisa iyo naftiisa aan kontrooli karin oon iscelin karin cudur buu qabaaya ilaahay ummadda ha ka qabto war caqli baa loo baahan yahay in badanaa gabdhaheenu ay sameeyaan waliba gabdhaha singalmaadarka ah nin kastaba ninuu nin ma tahay ha dhihina is ogaada oo ogaada inaan noloshan ninkan keliga uunan soo gelin noloshaada awlaadaada inaad guriga waxaad usoo gelinaysa aad ogaatid ogow waliba gabadha marxuumadda maaha inan gabar eed saarayo waayo iyada ninku waaba xaba loo siiyo dumaal ahaan waaba loogu naxariista laakiin gabdho kaloo waxaa jira ilaa hadda rag xitaa qaad cunaya iska soo xaraysanaya rag balwadle iska soo xaraysanaya hooyooyin badan waxaa jira rag noocaas inta guriga kusoo xaraystaan aan ubadkoodii la socon ilmahaaga waxyaabaha ku garan karta waxaa ka mid ah haddii ilmihii sida hadda gabadhan liiga sheekeeyey yarta ah wiilkaas ii sheeg wuxuu igu yidhi aaminay waxaan dareemay buu yidhi inay isbeddel uu jiro gabadhii farxaddeedii dhammayd way tagtay waa ilmo yar oo ciyaalka la ciyaarta wuxuu yidhi mar al markiina loo keeno guriga lama ciyaarayso gooni u baxaysaa meel bay iska istaagaysaa way cuqdadaysanta ilaa waa gabar mushkiladan ku socoto ilmihii markaa isbeddelka noocaasi ku aragtid oo aad aragtay ilmihii inuu dabeecadii una lahaan jirin iska soo bedelo oo farxaddii una lahaan jirin iska soo bedelay hooyo haddaad tahay waalid aad tahay waa inaad ogaataa oo ilmahaaga aa weydiisaa oo tiraahdaa maxaa dhacay waliba ilmaha aadan ku dhex weydiin caruurta kale dhexdooda waa ina ilmahaaga aad ballan la samaysataa oo meel la fadhiisataa gees intaa la tagta tira hooyo waxa jira ii sheeg isbeddel baan ka arkay waa inay ilmahaaga kugu sir qarsan karaan hadda ka hor waxaa jirtay gabar Toronto joogta oo la yiri hooyo Soomaaliyeed laba gabdhood haysatay caqliga samaysay caqli la mid weligay ma maqal qof aad u caqli badan bay hooyooyinka kala caqli badan saasoo kale iyadoo single motherska waxay guursatay ninkii baan gabdhii yararkaa ka farxumay ilaa inkaar bay qabaan qaarkooda bahalkooda uma ilaalin karaan inkaar Allah kurida ilaahay ka gooyo malaxay ka gelisay gabadhii labadii ciyaal ahayd unbuu wuxuu ka dhigtay bangi buu la furay oo kale gabdhihii yaryar ilaahay markii waxa la maalmaha kamid ah waxay soo waceen qoyskii markay soo waceen oo hooyadood ay raadinayaan taleefankii baa fariintii ka qabtay message-ka lagu reebo taleefanada baa codkii kaga duumay ilaa gabdhii yaryar waxa codkooda duubaya ajaladan reerkan uma oga oo isiyagu xislaan taleefanka waa saarteen waa xirteen laakiin sarmaqaba Allah u sahna ilaahay subxaanahu wa ta'ala sahna waha gabdhihii yaryar markii ay codkoodii duumeen ilaa codka isla markiiba familkan may arkin mar kale arkeen moogta gabdhii yaryar ayo adeer way xanuunaya ku hayo midna uu haysta mid kale kor taagan tahay baa codkii duuma codkii markuu duumay familkii gabadhiiba u yeereen si fiican bay sameeyeen gabadhii hooyada ahayd ba u yeereen waxay leedahay arrintan aan maqalnay taleefankan waa taleefankaagii ubadkaagii balla soco hooyadii deganaashay samaysay caqli bay la timid naag aad u caqli badan bay ahayd hadaa wax ogaatay xitaa lama boodo saad qofkan uga aarsatid gabadhii waxay samaysay waxay tiri ciyaalkii gabdhii bay la balantay gabdhii bay la hadashay waxay tiri hooyo arrintaas ma jirtaa ii sheega haa way jirtay muddana wuu nagu waday ma saasaa haa haddaba ila shaqeeya seen kula shaqeynaa hooyo waxay ila shaqeynaysaan waxa idinku dhaha samaynaysiin haye gabdhihii bay la balantay waxay tiri waxaan iska dhigayaa qof dhakhtarka aaday emergency-ga isagaan dhahaya ay kaxee waana idiin soo celinaya emergency-gii bay tiri kaaligee emergency-gii buu geeyaa boheelo malaha markuu emergency-gii geeyo waxay ku tiri waa caruurt gabdhihii waa cidle u tag gabdhihii cidlada markuu u tagay ila furihii waa haysataa iyadaa haysatee gabdhihiina waxay tiri guriga sii fura oo ka dhiga wax maaragtay albaabka uu sii furan yahay shanqadha way maqlaayeen inkastoo furaha ay soo siin karto gabadhii booliiskii way u ballamisay way u adkaysatay way ogtahay gabdhaheedii in la fara xumaynayo hadda maadaama horey u soo mareen markaan waxay rabtaa inay ninkii qabsato waxay tiri horey wax idinku soo dhacay dhiman maysaane ninka saan ku qabtaan rabaayo bal ha idin yimaado ha idin soo noqdo wuu soo noqday boheelo wuxuu siri fursad baad heshay xaajiyadii waatan emergency-ga iska dhex fadhidaa adduun war uma hayso shaqadaada qabso iyadana askar bay soo kaxaysatay waxa loogu yimid kiyo kor fadhiya gabdhii yaryar nin waxaa la yiri booliisku ku jiro xoog weynaaba markiiba iscelin kari waaye oo derbiga intuu ku qabtay isagii dhamaa far iyo suur ku qaaday la Soomaali waa taqaanaan mijo yaryar iyo calool yar oo taagan bay leeyihiin cirka inta loo qaaday derbiga lagu dhajiyay markaas yiri waxaan soo xasuustay gabadhaydii yarayd aabaan ah oo ilmaan leeyahay gabadhaydii yaraadada waxa ku sameeyay bay ii sawirmay way kaga heshay
wiilinkiina xabsi daa'ina lagu xukumay hooyadaasi haddee waa waray waa baayo waan hoogay inta la soo istaagto gurigii isgaraaci lahayd ninkaas may hesheen laakiin caqli bay la timid waxay tiri dhiman maayana hal mar oo kale ha lagu sameeye aad heshid muxuu ahaa ninkii sida lagu xiri lahaa ilaa caddayn baa loo baahan yahay moogta marka hooyadan hadda marxuumadda allah u naxariistay iyadu faamilkii u tagtay halkay booliis u tagi lahayd faamilkuna marka qaar xal ma hayaan adeerowna astur iyadii baa lagu sii yiri adeerna astur oo maxaan kugu asturaa gabadheeda yar baaba la farxumeeyey maxaa astur keena adeerna astur ceeb baa ilaahay astura ilaahay ceebaa asturay adeerna astur markaasay weliba ninkii ku soo celiyeen oo guriga u keeneen hadda ninkii xanaaqsan oo isagii dembi galaba dembi kala sii galay hooyadii nafta dhaafiyey haye adeerna astur marka maxay dhashay tanay maanta dhashay adeerna astur tanay maanta dhashay inay maanta bacaa awlaadeedii sidaa ku dhammaadaan marka gabdhaha soomaaliyeedow adeerna astur ha yeelina soomaaliya waad aragteen gabdhaha marka la kufsado odayaal yaryar baa la isku keenaa markaasaa heer waxaa la gaaraa kii kufsaday in iyada lagu daro oo la yidhahdo war naga astur adaa kufsaday bal adduunka ilaahay qofku kufsado lagugu daray ka war noloshaadii dhammeed baa lagugu gubay marka cilladahaasaa jira u baahan in la xaliyo yaa xallin kara haddaadan adiga gabadha aad iska xallin naftaada haddayna iska xalliyin oday xun kaama xallinayo marka gabdhuhu ha is ogaadeen ninka ay guriga keenayaan inaad ubadkaagana aad u keenaysid ogow ninku kaliga inuunu ku guursanaynin ogow awlaadaadana wuu guursanayaa oo wuxuu u guursanayaa ma aha inuu wax ku samaynayo macnaha wuxuu u guursanayaa inuu awlaadaadana ogaado oo la noolaado wuu la noolaanay gurigu la jooga soo ma marka aad gabdha naftaada kaliya ka fikirin dardaarankan idin siinay gabdhaha soomaaliyeedoo haddaad hooyo kaligeeda tahay nolosha iyo mustaqbalkii kaa xumaaday hana ugu degdegin ninoo nin ma tahay ha ugu degdegin walaashaye muhiimadda waxaa wanaagsan oo awlaadaada iska korsato intaad cadow u soo gelin lahayd intaa markaan baxdaba mid ka shaqaysan lahaa oo gurigaagii awlaadaada kala daadin lahaa u keeni lahayd waxa hooyooyin badan waxaa la sheegay ayagoo reerale intuu nin soo dhex galay iyaalkii xitaa ku yiri abaayo waa weynaadeene bannaankaa ku noolaadeen oo hadday weynaadeen maadaa soo korsaday ma adigaa cunto soo siistay ma adiga ku weynaadeen maxaa kaa galay inta hooyo waxaa jirta ilmaheedii bannaanka dhigayso ninkii xaraysanaysa dhaysa haa waa runtiiso way koreene hadda way iskorin karaan oo ilmihii markaa cuqdad halkaa ka qaado oo bannaanka ila ilmihii aabbayi hooyo adaa u ahaa aduu kugu ababay aduu ku bartay haddaad intaad maanta nin soo xaraysata bannaanka iyagii dhigto wuxuu u arkayaa inaad ninka ka dooratay isla markiiba cuqdad baa gelaysa marka hooyoy mar haddaad hooyo tahay hooyadu waa ubadku waa sarif waa lacag la sarifay $100 oo isku dhegan baa jirta oo aad meesha doonto u qaadan karto fudud boqolkaa markaad sarifato oo shilimaan ka dhigto way kaa kala daadanayaan waa tusaalaha idin siinayo boqolka shilimaan markaad ka dhigto way kaa kala daadanayaan markay kala daataan waxaad u baahan tahay meelaad ku xaraysato awlaadu waa saas oo kale waa shilimaan kuu sarifmay waa inaad shilin walba meeshaad dhigaysa aad ogaatid boqolka jeebkaad ku qaadan kartaa muxuu meel kalead ku laaban kartaa culays kuguma hayo shanqarna ma laha cod ma sameeyo waa fudud yahay macnaha laakiin marka ilmihii aad wadato shanqadhaadaa badan ninku wuu kugu nici ninku wuxuu keenayaa inuu dhibaato keeno wuxuu keenayaa inuu ku yiraahdo muxuu ahaa ilmahan way noolaan karaan wuxuu keenayaa inuu ku yiraahdo maya kuma baahna wax kasto ilmahaaga aad u qaba inuu adiga ku jilciyo maxaa kaaga muhiimsan marka inaad ilmahaaga farxad kula noolaatid inaad gurigaaga culays iyo aad dhibaato ka dareemin markaad ka baxdo gurigaaga aadan warwar ka qabin war ma hebel baa la korayaa mise hebel la korayaa inaana maskaxdaada gelin ilaa aad soo xaraysatay mid iimaankiisu hagaagsan yahay alla ka baqaya oo naftiisa yaqaana meesha ay marayso kaasna waa adagtaa sida lagu helaa maanta runtan idiin sheegaya aad ba u adag tahay nin Soomaaliyeed oo daacada oo alla ka cabsi yaqaana oo muxuu iska ilaaliya qurunkaas oo kale oo awlaadiisa oo la mid noqdaan oo aabaruna u noqda waa nin iyo nasiib waa gabar iyo nasiibkeed aad ba u adag tahay marka gabdhow ka fiirsada haddii Ilaahay yidhaahdo reerkana Ilaahay samir iimaan ha siiyo waana ka wiilka uu ka warramayo wixii ku dhacay qoyska badan ay ku dhaqan tahay ayaa waxa ka dhacday arrin aad iyo aad u naxdin badan xalay waxaa jira masaajid magaaladaas ku yaala masjid taqwa marka laba wiil oo walaalo ah oo iyagu xaafid quraan ahaa labada wiil waa kuwa wiilash masaajidka salaada tujinay taqwa taraawixii xalay ka tujiyey ayaa waxaa dhacday xalay in labada wiil
taraawiixdii salaadii cisho markay tujiyeen gurigoodii u hoydeen in walaalkood oo ka weyn oo 25 jir ah labada wiilna waxay kala jiraan 12 sano iyo 16 jir weeye in marka walaalkood oo ka weyn 25 sano jira uu labadii wiil toogtay sidoo kale waxaa la ii sheegay oo la ii xaqiijiyey markii aan la hadlay qof isagu qoyska aad u yaqaana oo ii warramay in wiil kale oo saddexaad oo wiilasha walaalay uu la socday marka wiilka 25 sano jira ee labada wiil ee xaafid quraanka ah toogtay waxaa ka dhamaatay rasaastii horalka saddexaad inuu dilo kadibna wuxuu ku garaacay iskooladii arrinta kale dhaxdinta leh ayaa waxay tahay in carruurtan hooyadood ay dhimatay oo qof dilay 10 sano ka hor sida ii sheegay marka carruurta qoyska waxay ahayd waa carruur 6 ah ayay ahaayeen 3 ka mid ah marka dowladda ayaa qaadatay 3 kalena carruurta maaragtay qoyskoodii weliba gaar ahaan dhanka hooyadood ayaa qaateen marka labada wiil ee xaafid quraanka ahaa ee xalay la dilay Allah u naxariistay iyagoo markaas taraawiix soo tujiyey iyagoo markaas masaajidka ka yimid bisha ramadaanna taraawiixda tujinayay waxaa korsadeen qoyskii faamilka ka midka ahaa wiilka 25 jirka ah wuxuu ka mid yahay 3 carruurta ee dowladda ay qaadatay isaga ayaana gacantiisa ku dilay walaalihiis oo walaalihii ka yaryaraa ah وماشي ومعرض الشنات الجر مدام ويا وقتي يقول لها ولا نهود نرشودا وكفر لها أيو سوى ركعة ولا نهود ودين ولا كعب مدي المصيبة وعلى وينا السجع عيل قبل مسكين ذلك عرضة سكين جيودين وعلى وينا تحسب درو علماء يومارد الأمان أصحاب المشرق وحنا المساجد كالتقوى مقالة كانساس سيري زوري iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaas iyo ku dhaqan waa arrin aad looga dhaxal marka Soomaalidu waxaa maanta caawa bilaabaya tobanka dambeeyay ee bisha Ramadaan in carruurtaas iyo qoyskaas loo duceeyo in bulshadaas loo duceeyo musiibadaas dhaxlintaada lama arkin waa wax aad looga dhaxo marka waxaa rabaa in dhalinyarada laga warhayo in waxaa jira cudurro badan oo dhimirka mental illness ah dhalinyaradeenu waa inta badan waxaa la dhahayay ay la xanuunsan yihiin laakiin aan laga warhaynin marka waxaa rabaa waalid ayaan ahay 5 carruur ah ayaan maaragtay leeyahay Allah ii badbaadiyo carruurtayda mid ka mid ah way waxa hadda kaamarada ii hayo videoga iga duubaya marka waa arrin naxdin leh marka inaan ubadkii iyo carruurtii ka warhayno si gaara looga warhayo marka waxaa rabaa inaan dowladkaas iyo carruurtaas loo duceeyo فضل مارتي وقت على جوهر هيو إلى أهي هون حرس رمضان هلا تحضروا سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم